يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق عباس جانك عباس باي صاحبي دمانتين وين اسلام سلاكدي صاحبي سأوجدي ما حلقدي كوي تبلد وحلقة كونفيوز sidoo kale waa xalqadii ugu yaabka badneed aan aragno laakiin saaxiibeen waxaan ii sheegay intaan bilaabin ka hor dad badan inay ahaayeen waqtiga noo badi oo Cabaas daqiiqadaha noo dheereeyay asxaabta badanaa sidaas leeyihiin waa arkay laakiin sidaas ma aha saaxiibi arinta waxa waa wax walba meesha ku haboon tahay inay ku dhamaato xalqad walba meesha lagu tagalay ku haboon tahay ku dhameeyno saaxiib sidaas leh waa kaliya mid walba meesha ku haboon tahay ku dhamaato ayda soo koomeyso hasiiso kan saas ku soo dhamaanaya insha Allah laakiin daawada awal xalqadan marwa حتى waqti yar حتى inaan iglu may ku raaxaysto insha Allah si xalqadiina u bilaabno wuu salii xabiibkeen Maxamed sallallahu alayhi wasallam xalqadiina noo bilaaba 俺たちがやることはただ一つ戦え kadib weerarkii ugu weynaa oo halista badan lagu sameeyay Levi oo na baran nin Kenil ah ninka soo tabar Levi oo dhulka hoostiisa intee ku dureen ninkaasna oo ka tirsanaa tiimka boqorka ilaaliya sidoo kale hadafkiisa oo ahaa inuu afduubtay Historia iyo Eren ninkaasna markaas aad u murugootay laakiinse maxaa hadafka uu ku leeyahay boqorka Eren iyo Historia inuu wato sidoo kale maxaa ku baxsan yahay qorshahaas waxa soo dhan insha Allah waa arki doonaa markaas Levi kooxis wuxuu u wareegay nimanka Bikasi iyo Arbe ka soo badbaadinayay sidoo kale gacanta in lagu dhigay in la weydiiyo hadafka ay ka lahaayeen Historia iyo Eren ninka ma kala weydiiyay oo sheegay in arinta waxba ka ogeey sidoo kale kooxda Kenny oo ka tirsanaa kooxda boqorka ilaaliya inuu ka tirsanaan laakiinse uu sheegay niman ciidamada boqorka ilaaliya ka tirsan inuu soo direen sidoo kale ay lacag loo siiyeen anagu majrimin caadi askana wixii noo diraa iska qabnaa markaas dib waxa la ogaaday nimanka oo sheegay ninka maba ka dheero meesha ay kormeera ku haayaan ninkaas ay meesha uu tagtay labadooda soo dishay soo xisay gacanta ku soo dhigay ayaga markaas labadooda midka ugu muhiimsan aad u qaabaya sawir u dhalaaliyaan ninkan wali inuu hadal sheegay mar bahaanjiya hortaagan oo حينين بس sidoo kale Levi oo ka daranba laakiin sadawal markay si fiican Levi hanji u ciqaaban oo sheega sir weyn oo aad muhiim u ah wuxuu leeyahay ninka qoyska boqortooyada soo hadda xilka haysa ma qoyska saxda ah ayagana ma afduuban waxaana ma ka dambeeyaan ee qoyska boqortooyada saxda waxa ka jooga hal nin waa ninka Historia Eren afduubtay waana ninka ciidamada boqorka ilaaliya qaas aan keenay ciidankiisa ninka adeegsanayo ninkaasna waxa loo yaqaan Road Race asiga kaliya boqortooyada ka joogo ee gabadhiisa Historia gabadhaas asaad waana ubadka kaliya hadda asiga haysto oo wartan si yar ma sir weyn waa muddo aradinaynay boqorka hadda xilka هاي بقولك صح ما هن محاوى هذا كاس والله واحد عجيبة لك كل واحد أركن هيستوريا وردك كسوق على أبيض ماضي وحوليه هيستوريا قبل تاي قبل قالقة تاي أنت سمود أرادين عي وأنا كوفا أنا وحنا تاقف بقرتين ما دي تحل الدونو هيستوريا لو وح هذا ما تكان صوبته أبيض ومرك أوريسي أركيسو قبل أنا فرحة ساقادة إير ما بقول جيدبا لك كل هنجيو عادي عمره بحق أنت أوروبو ومرك أنا إير حق وين وهايسو sidoo kale xogta waa xog aad muhiim u ah oo anagu maskaxdeena furfurayso hanti waxay leedahay Eren waxa jir message oo Eren message ka soo ah intuu Eren ku sugnaa goobtii duurka ee Rainer iyo Berto ku afduubanayeen sidoo kale Ymir oo Eren markaas suxsan laakiin oo hadal ka maqla Berto iyo Ymir isdhaafsanayaan hadalkaasna uu ahaa Rainer iyo Berto ayagoo yar inay meeshan imaadeen sidoo kale qof saddexaad inuu la socday qofkaasna ee cunta Ymirna markaas waxay ahayd teetan caadi ah oo banaanka dibadiis ku sugan muddo ka tosanaa sida la qiyaasay in qofkaas uu lahaa qudrada teetaniska waaciga ah sida Rainer iyo Berto iyo Annie laakiin Ymir markay qofkaas ayaga la socday markay cuntay waxay la wareegtay qudradiisa sidoo kale waxa cajiib ah waxay ku soo laabatay bil aadan oo yacni Ymir waxay ahayd teetan caadi oo darbigiisa dibadiisa muddo ka toosana ku noolaa oo bil aadan ku soo laabtay wax sabab ay tahay yarkaas ayaga la socday markii cunto Ymir in bil aadanimadeeda dib u soo ceshtay oo ay ahayd qof konton sano ka hor noolaa oo war waxaan macquul maba ahabe wax aqliga aan galinin waaye sidoo teetan caadi oo bil aadan ugu soo laaban karaa waa isla faahno ana isla garanay in teetanka asalkooda bil aadan ahayna la dhahday sidoo kale waa garanay in oo jir dad qudrada teetanka waaciga leh sidoo kale bil aadan ay noqon karaan teetan noqon karaan laakiin halka shay afaablana waxay tahay sida teetarska dadka qudrada waaciga isticmaalayaan sidee ku helooyin waayahay hadda handi sida ay sheegaysa aan dhageysano qudrada teetarska sidaas lagu helayo sidoo Eren ku hela marka Eren ma ahan teetan dibadaas banaankiisa ku sugan asalkiisna teetan ma ahan wuxuu ah unug dalbi gudihiisa ku sugnaay oo qof caadi ah sidoo qudradaas ku hela marka wallahi madaxa ku wareerayo weerarkay teetarska aad u faankiisu adag yahay dhanka kale handi wuxuu ogeeyay xogta dhammaan kooxda Captain Levi ayagana aad u orgagaxeen sidoo kale waxay u sii sheegtay wax kale oo argagax ah in boqorka Road Race qorshaha Eren la dibcsay in qorto laba qaybood ama laba qorshaha koobaad ay tahay in uu rabo teetar kale oo caadi ah qudradiisa inuu u wareejiyo Eren oo Eren oo cuno markaas qudradiisa teetarkaas qofkaas oo la wareegay qofkaas ma bil aadan oo ku soo laabto bise qorshe kale oo dibacsan yahay in ay jirto qudrad kale qofka caadiga teetar laga dhigi karo kadibna Eren oo cunaayo qudradiisa la wareegayo qorshaas wuxuu dibacsan yahay ay tahay gabadhiisa inuu naftarkiisa teetar oo ka dhigi doono waa sida aniga qiyaasa ay leedahay hanji maskax badana dhammaan wixii meesha jooga wayaabay ma teetarska caadiga ma bil aadan u soo laaban karo Eren wax mas'uuliyad dibacsan yahay ninkaas waxay leedahay tan fadhi malaha kaligeega oo baxayaba markaas Levi dajiyay wuxuu leeyahay ninkaas isdaji dadaga ma fiicna arinta
inta waa ka soo daalinaa erina weli teeta ma wadninba taas oo micnaheedu tahay weli waqti waa haysanaa imika sisdeji laakiinse marka hore waxaa dabgalinaa road race markaas waxaa loo fududaanaa erin meesho joogo ayagana markaas dhammaantood way yeelayaan markaas kadib gaaya hanji warka ka dhalaalay xabsigu celinay gaaya saaxiibkiisa xabsiga ku jira wuxuu leeyahay warniyo war ma sheegtay oo boqor ku saabsan asigana wuxuu malayaa saaxiibkiisa inuu khiyaano ciido dhabta ku dhow wuxuu leeyahay waa khiyaanta qaacim weyn tahay waxaanu dhan inaa sheegada u sababa hanji markaas soo badu celida ninka askana badgeli wuxuu ku khiyaano malaha wax oo noo sheegay malahan anaa ku qaldo warqadan ilaa asiga noo soo qoraa kaaga dhignay sida warka oo dhan sir ah haysid ilaa noo sheegtid ina si kale kuma sheegaysid gaagina Tony jabo wuxuu leeyahay ani boqorka khiyaano miya qof dulya ahay midka kale wuxuu leeyahay shaydaan yahay saaxiibkaya khiyaanta miya hanji markaas soo badu celida arku jiyada see ka dhigaan baadina niga marka dilaysa waa salficdeena miya adig xabsiga la galiyo ma la dilin ila kowniga siyaab ahaydba ay xabsiga ku waara qashmiina tihiin gaagina soo badu celida dembiga iigish hadma dareemayso sababta gabriyaal taa soo mahan ee maalada dareema doonta qayr badan ku rajeena hanji zoy hadii inta yaabto waxay leedahay magacayga dhameystir ninka ayaa baray markaas way ka soo tagay wixii ag yaalay xoog u darbeene xanaaq daraadeed isla markaas Levi uu maana xuliye maxas meenusa idin waxay leedahay wax kala maahan karatele waa karateen barkrimiya Levi inta leeyahay xuliye faataaladii afreed doodka dhibka naga dhaaf dhaka kalena waxa arkay road race wali inuu ka waalo historia wuxuu leeyahay uu kala dhacsinayo aadanaha qofka kaliya oo badbaadi karina ayda tahay qortooy saxda filmika race waa anuka waxaana ka soo hara adig aniga oo kaliya hadana xilka inaa adig qabata laga baahan yahay sidoo kale waxa laga baahan yahay aadanaha badbaadisid oo inuu ka waalo rawaa daawad ninka saas ahay waa ninka kamana deeriyay hore wuxuu ugu sameeyay naakal intuu farta ka saaray naagta soo korsanaysay ayna waxay rabto ku sameeynaysa naagtaas kadib keenayna ku amray inuu dilo ayadana magaca inuu ka bedelo Kristo u bixiyo oo meel kala geeyo gabadha oo sidaas u gal hadda maanta u soo baahday ma dan kale oo kaliya ninkan laga kala sheekay zaa'ida u xumaatay keenayna oo diloy nimankii uu soo diray in historia ay soo qabtaan ciidamada boqorkan dushug ay ka saareen kooxda saamaynta oo mujrimiin ay ka dhigeen waxaa lagu amar taliyooda in la qabto xabsiga dhiga sidoo kale ayaga dhammaantood xabsi lagu aruuriyo taliyeen Erwin ko uu ma zayd loo dhibaatay wuxuu leeyahay waxaan ogahay Erwin wax gacan ay lug inaan ku lahayn anigana zayd ku aqaan laakiin aniga hadda garabka ma siin karo Erwin wuxuu leeyahay dhib ma lahan niile waxaan oo dhan ana xalinayo laakiin Erwin inta soo bixin wax walba qorsheeyay wuxuu ku sameeyay boqortooyada feega ah Erwin wuxuu sheegay in boqortooyada saxda ay ahayn inay tahay boqortooyada aabiisa dishay sidoo kale aabiisa macaan loo ah waxa lagu dilay oo kaliya ay tahay wax badan inuu ku ogaado boqortooyadan in waxba ka jirin laakiin waxa la sheegay boqortooyada saxda in aasaasin boqortooyada feega ah oo muddo 100 sano ay dhulumin jireen ayaga aabaheena arintaas oo ogaaday sidaas daraadeed loo dilay laakiin Bixis waxa ku sheegay in boqortooyadan aan baabi'in doono sidoo kale aadanaha inay soo kasato waxa muhiim qayb weyn ay ka leedahay in boqortooyadan hadda xilka haysta in la burburiyo waana sameey doona hadii nafteeda igu qaadato xataa wallahi Erwin caadi maahan Erwin asoo qorshihiisa wato wuxuu horkeedin boqortooyada feega ah waxa ka yaabinaa daawada boqorkana ba hadli kara xataa laakiin waxa uu hadlay ku message joogo waxayna leeyihiin in uu ismarkay ku xukumeen Erwin dil oo Erwin magaalada dhexdeeda lagu dali doono sidoo kale saasay ku soo abjarayeen kooxda saaminta oo dhan wallahi maxaan casiintihiin hadda agaalada ninka qiimihiisa waxaan kuma dhaqaaqayn ba xataa dadka kale Levi ay kooxiisa door ku jiro waxay rabaa ciidamada boqorka ilaaliya qaar kamid inay gacanta ku dhigaan si ay war badan u weydiiyaan laakiin islaba gacanta lagu dhigaa qoryahana waa laga qaadaa kabtan Levi wuxuu weydiinayaa waa niga sareeyo oo nigu amro inaan ciidamada kooxda saaminta oo dhan soo raadisiin aniga waxa la nigu sameeynaa hadda ii sheegtay wax walba war ah haysiin oo dhan magaciidin ma haleen ku qoriyeenba in adiga lagu magacaabo Marlo soo maahan gabadhan ay lagu magacaabo Hichi hadda waan kala aqaan xil walba ni baaqadan soo raadin waan dili karaa ee waxa haysiin oo dhan ii sheega gabadha Hichi lagu magacaabo geesima inta iska baartay waxay leedahay aniga boqorka daacad u ahay dambiyada ageysteen aad u badan yihiin heer waxa geertay laba teetirsan magaal soo dhexgelisaan isku baabi'iyaan oo dad fara badan inuu ku baabao meeshaas sidoo kale saaxiibdeeda qaali ah aani magaalkaas dhexdeeda ka shaqay jirtay ilaa haddana war laga ma hayo inay noosha ima ina dhimataba Marlo wuxuu leeyahay Hichi warka badan jooji baxrana gelinay ayaduna waa ila hadla ururta dhan sheega waxay leedahay Mikasi army gabadhaas xiriirada tababarka dhamaantii waa soo wada qaadatay magaceedu waxa loo yaqaan Annie Leonhardt aniga aad ugu dhaweey sidoo kale waa soo wada shaqay jirnay magaalada dhexdeeda inay joogtay sidoo kale teetaka naagtii Irna isku dagaalayeen Hichi kor ta u qeelisay waxay leedahay adiga u soo in gabadhaas teetaka naagta ku istaagto mishideedina adiga dusha niga saaran tahay ibayna wuxuu leeyahay maya teetaka naagta ay sheegayso waa Annie Leonhardt naftirkeeda Hichi iyo Marlo hamar wada yaabaan ee arinta ma ogeey majaahilnimo ay ka qaaday markaas Levi wuxuu leeyahay aniga adduunka wax aan ku ognaa malahan ariga wax aan dhaan malahan cawaan caadi aan jaahilnimadii daradeed ay meeshan si dhaqsi ah ugu dhaqaaqna waan ugu imaanahay markaas Marlo wuxuu leeyahay aniga kafta Levi aad ku aaminsanaa sidoo kale waligeey waxa ma jireen koox saameynta ku biira laakiin si kaliisa waxa ugu biira ciidanka boqorka ilaaliya waa ku barya aniga daradeed nagu aamin Levi wuxuu leeyahay maya kooxdeedu mooye koox kale American ma jiro laakiin Jana wuxuu leeyahay ani arinta igu daa kafta Levi in la aamin karo in kale ana fiirinayo Levi wuxuu leeyahay waxa arta sameey Jana inuu wato duurka geeso xawayar intuu fogeeyo wuxuu leeyahay labadiina waa ina dhimatiin ayagana taliyeen hana dirin anagu waligeey koox saameynta aaminsaneen marka gacmaha loo qaadin Jana ayagoo tijaabina wuxuu leeyahay sideen aamin kara inaan American maxay u cadeey kartiin maya waa inaan dhimatiin dhabarka naga tooginaysiin Jana Marlo wuxuu ku leeyahay maxaa kooxda boqorka ilaaliga ugu biirtan in boqorka ku adoonsado hadiis ay jaso maahan Marlo wuxuu leeyahay adiga kooxda saameynta ugu biirtan in aadanaha difaaciyo soo maahan aniga riideen maro bixiyay in kooxda saameynta ku biiro taasna beenteeda maahan ee hadaartu waa dili kartaa aadanaha daradeed u dhimanaay Jana wuxuu xaqiisanaa in daacadiin sidaas daradeed iskaga dhaafaa ayagana wuxuu ku caawinaya kabta Levi ninka area u taliya oo kooxda saameynta oo area inuu soo qabto markaasna Sasha iyo Connie iyo Jana meesha si xoog u
jabinayaan oo shactara ah ninkana gacanta lagu soo dhigaa Levi markaas soo qabto dirdilayo si oo war badan ugu dhaliyo laakiin ninka wali uu madax adeeg oo wax dhan oo sheegay mar Levi wuxuu leeyahay caafimaadkaaga ku jirtaa inaad ii sheegtay story Eren mihii joogaan mise intaan muddo afkaaga urka badan nugteeda midin geli karin midiya ka gelina wallahi Levi waji malaana dooro waa sameynaa dooro waa iska sameynaa ninkana too madax adeeg wuxuu leeyahay wax xarabtay ugu sameey hal shay ma sheegay taliina Eren oo u dhamaatay birsuba iyo daldali doona adikana ma haaseen ugu dhamaatay koox saamintan ma sii jiri doonto Levi waxay u muuqatay wajigiisa ka anama maskaxdiisa uu ku dhahay in aniga dhihro ma Levi ana uu hadlaayay ninkan wuxuu isku malayaan koox saamintan ku tiirsan ma ogamiya koox saaminta deebar burto waxa ku tiirsantiin aab ku nooshiin waa koox saaminta deebar burto tetaniska saaska ilinaysi waaba doqomeyn ma hal isku soo aruushaba markaas Levi wuxuu leeyahay lafaan xanjada isku burburiyaba mase history Eren ii sheeg meesha joogaan ninkan wuxuu leeyahay run aan sheegayo wax aan ogahay ma lahan Kenny Ackerman ninkaas wax walba ila socodsiiyay inta ninkaas amarkiisa qaadan wayna ka oo iga siinaa Levi wuxuu leeyahay Ackerman Kenny waa aqaana familkiisa Ackerman ma ahayn ninkaas Levi way fajacayaan sababtoo ninkan uu ka tirsan yahay familkooda oo Kenny Ackerman ma ka tirsanay ilaa maanta waxaas weydiinay ninkan wuxuu saalan awood badan yahay bini'aadan ahaan marka loo fiiriyo familka Ackerman oo kaliya saan awood badan oo xirfad leh laakiin familka Ackerman way dhamaaday kaliya waxa ka haray ninkaas Levi haddana war waxba soo gaarobay in uu Kenny uu ka tirsan yahay Ackerman oo hadda saddex Ackerman ina haysano Levi ninka wuxuu ku leeyahay gacmaha ku caafimaad qaba ayuu ka jabinaaba ninkan wuxuu leeyahay Kenny aaba ka daran tahay Levi wuxuu leeyahay ha waa laga yaabaa dadka kale waxa arkayna Erwin la hor keenay boqortooyada feega ah si uu u wadaago hadalkiisa ugu dambeeyay inta la dadalin ko Erwin wuxuu leeyahay koox saaminta hal dil burburi macnaheedu ay tahay aadanaha inta ugu dambeysay inay burburayso oo aadanaha halis weyn ay gali doonto laakiin ayaga hadalkaas tama dhageysanayaan way si inkirayaan laakiin Erwin nacasmaha qorshihiisa mardhow ay soo yeeri doontaa hal mar gabar albaabka si xoog badan ku soo gasho waxayna dhahday darbiga roos teetan gaashaga teetan weyn inay burburiyeen oo teetanska darbiga roos ay joogaan oo macnaha waxay ka wadaa darbiga labaad inuu burburay taliya Bixis wuxuu ku amraa darbiga Siina oo dhan albaabaha in loo furo dadka darbiga roos joogaan ugu soo gudbaan darbiga Siina markaasna daadu waa inta Erwin uu rabay ugu dambeyn wajigooda saxda la soo bixin boqortooyada feega ah waxay leeyihiin albaabaha ayaa la furi mateetriska maartay inay soo galisiin taniiliin wuxuu leeyahay maxaa waxa ku hadlayso dadka darbiga roos joogaan dhamaatood way dhimanayaan waqtiina wuxuu leeyahay anaka muhiim inaan noolaano ilaa boqortooyada anaku waaye yaa muuna sidee wax ka yihiin markaasna waxay imaanaa taliya Sakri oo ah taliyaha ciidamada guud oo dhan wuxuu leeyahay waxaan oo dhan tijaabo adiga nagu sameeyay ahayd darbiga roosna woona bad qabaa wax teetan burburina ma jiro qorshaha oo dhan waxa soo degay Erwin si adig wajigiisa saxda banaanka loo keeno oo Allah maxaa Erwin wax kala tahay waxay leeyihiin waxay in dadkina ka warqabteen dadkina aan ka naxdin waxa tiin bis oo kaliya boqortooyada nafsadooda fiirsanayo ana aadanaha dhibaatadooda waxba aan ka gelin nafsadooda ay rabaa inay badbaadiyaan sidaas daraaddeed xilkan waa lagu wadajiyaa dhammaantiin xabsiga lagu aruuriyaa ileen boqortooyada saxmatiina oo aadanaha ka naxaayay sidaasna boqortooyada feega oo xilka lagu dajiyay Erwinna iyo koox saaminta dhammaantoodna waa la soo fasaxay oo taliya Sakri ku amray shaqadooda inay sii wada karaan magacooda ka cusub qaadi karaan hajin markaas kooxda Captain Levi message soo gaarsiisay ayagana aad u farxeen oo war aanu ka farxnay yes aanu ka farxnaba laakiin daawada waxa dhacay sidoo kale in Erwin buug uu soo dhigo buugaas boqortooyada feega oo ka soo qaado hanji farta ka soo saaray buugaasna uu ku qoraya wax walba boqortooyada saxda rays iyo sidoo kale Erwin imo joogo laakiin daawada buuga waxa ku qoran dhibaato weyn familka rays boqortooyada qabsatay muddo 5 sano ka hor 5 sano ka horna marka dhahayna waa isla maalintii darbiga Maariya la burburinayay teetanka weynka burburinayay xalqadii koowaad laakiin dhacdadaas inta dhicin boqorka Rodriguez wuxuu qabay 5 caruura markii lagu daro historia hoosteeri uu iska reebay magac kirsi u bixisa ogdii uu iska fogeeyay laakiin sidoo kale waxa jirta gabadh Farida Rays dhahayo oo 5 caruur ka tirsan gabadhaasna mar walba ay soo booqan jirtay historia oo aadna dadka u jeclaa jireen laakiin dhacdadaas dhacday ee gabadhaas ku luntay dhacdadu waxay ahayd muddo 5 sano ka hor ayagoo kaniisad joogo kaniisada amar lagu waayo oo saadooda dukanayaan oo cibaadadooda diintooda iska wada dhammaantooda waa la dilay laakiin inta ka ahayd Rodriguez laakiinse wixii dilay iyo tuugada saas u galeen familka boqortooyada lama oga Rodriguez markii taas ay ku dhacdo waxa u maleeyahay in uu gabadhiisa historia gabadhiisa lixaad inuu damcay oo soo cishto oo caruurtiisa oo dhan waa la baabaashay asii kaliisa ka haray sidaas daraadeed wuxuu rabaa historia inuu soo cishto laakiinse uu raba gabadha wax kale inuu la damacsan yahay waxaasna ay noqon karto in gabadhan historia oo dhigay teetan markaas la cunsiin doono Eren si teetan kale waxay aan ayno haysto laakiin Eren oo cunsiin doono adiga sidee tahay kaniisadaas oo meesha Eren joogo waa meesha ku sugan yahay hadda Eren waa inuu meeshaas aan tagnaa hanji markii arrinkaas ay sheegtay Captain Levi iyo kooxiisa Mikasi Army dhammaantood isku diyaariyeen in kaniisadaas ay la tagaan wayna u soo socdaan hadda dadka kale waxa arkayna Eren oo hurdo ka soo kacay oo meel qariib joogo meeshana shakilkeedu uu egyahay meel baraf laakiin Eren ay ka muuqato oo dhahay Eren meeshan hore u soo arkay waxa ugu maleeyaa kaanama meesha in hore u arkay ma ku yaroodo waa yaabe ma aqaan wallahi laakiin sidaas maskaxdeeda ii sheego sarkaasna goobta waxa u maanay historia waxayna ku leedahay Eren hurdada ma ka soo kacay waxba cabsanay Eren waxaan oo dhan aabeey wuxuu sameeyay si uu aadanaha u badbaadiyo ha aabeey waa boqorka aadanaha oo dhan sidaas daraadeed waxaan oo wuxuu sameeyay aadanaha daraadeed Eren waa ku baryaa intuu waxaan uu ka sameeyay la ii dulqaado Rodriguez markuu meesha imaado wuxuu leeyahay yarkan waxaan oo dhan sidaa kuma fahmayay historia ee dhabarkiisa aad taabano asaa wax walba soo xasuusanayay markaasna daawada labadooda markii dhabarkiisa taabtaan Eren wuxuu arkay daawada wax aqligaaga aan galeynin wuxuu arkaa xasuusaas ay ku salaysan yihiin aabihi fasika Rodriguez oo dhammaantood hal goob joogaan iyo teetan hortooda isku bedelay teetankaas oo ah Grisha Yeager Eren
aabihiisa iyo sidoo kale waxa ka yaabina daawada Fred Rice waxay ahayd Titan kale gaar ah oo boqortooyada heestaan ayadana intay isbedeshay waxay la dagaalamaysaa Eren aabihiisa laakiin Eren aabihiisa guuleysanaya markaas ka bacdi waanu cunaa sidaasna wuxuu ku qaatay daawada qudarda Titanka boqortooyada heestaan Titankaas magaciisa waxa la dhahay Titanka asaasiga ah laakiin si Eren aabihiisa markuu Titankaas gacanta ku dhigay wuxuu baaba'shay familka boqortooyada oo dhan inteena ka ahayna aabahoodana markaas wuu soo faktay Rod Rice saacadaas oo dhan Eren oo arkayo xasuustaas waxa waa 5 sano ka hor darbiga maariga markii la burburinayay Eren aabihiisa markaas wuu u imaaday laakiin asaha hilmaamay maya inuu hilmaamo waxa ka dambeeyay Eren aabihiisa daawad wuxuu sameeyay wiilkiisa soo wado cibada ku dar wuxuu ka dhigay Titan aan waaci ahayn Eren Titanada dabaalka kale ma koo noqdo wiilkiisa asiga socodsiiyay Grisha sidaas ma daawad wuxuu ugu dhaxlay qudarda aabihiisa Titanka ah sidoo kale Titanka oo soo xaday aabihiisa boqortooyada heystay oo loo yaqaan Titanka asaasiga ah sidaas Eren jirkiisa waxa ku jirta laba Titan Titanka aabihiisa wata sidoo kale qudarda Titanka asaasiga ah Eren waxa soo dhan wuxuu ku soo xasuustay hal second wax ka yar Rod Rice wuxuu leeyahay yarka uu soo xasuustay aabaha dambiida noo geystay iyo sidoo familkeena u baabi'iyay Eren waa hadli la ah daawaday wallahi argagaxu qaaday xalqadana ma hayn nagu dhamaatay koodhe ama hadli kara saaxiibayaal magacaygu Cabbaas Janalka Cabbaas Bay saaxiibayaal madaxayga aad u wareeray koodhe confuse qaadnay insha Allah xalqada kale arkayna xalqada soo socota waxa arki doonaa sirr badan oo Rod Rice noo sheegi doona aadanaha ku saabsan iyo Titan weyn meesha oo dhan jabsan doono insha Allah xalqadiina waxay noqon doontaa xalqa xamaasad badan iyo sidoo kale xalqa confuse ah